Better International University. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا عشر كيني chapter 1 cost for employer analysis example كيسي كواد أو أنو كبران دونو essentials of CFP. سي أنو technically أهان أنو برانو CFP analysis كده example كان أيا إنه فريدونا. waxaynu marka hore isku dayeynaa xogta example kan jiro uu sido inaynu fahanno waxaynu tusaale soo qaadanaynaa gabadha Maryam la yiraahdo Mary Frost plans to sell waxa uu qorsheysan baa laynagu yiri sida halka aynu ku arkayno inay iibiso software ka la yiraahdo Doll software ka wax walba qabta la yiraahdo bay iibinaysaa waxay ka soo iibsan kartaa baa laynagu yiri software kan waxay ka soo iibsan kartaa from wholesaler jumlad ayay ka soo iibsan kartaa waxay soo siisan kartaa marka halkii software ama halkii package ba waxay soo siisan kartaa 120 per package with the privilege of returning all unsold units and wholesaler kaasi Maryam waxa uu sameeyay service in wixii laga iibsan waayo dhamaantood uu ka celiyo all returning or unsold units waliba uu siiyo maxay full refund macnaha lacagtii oo dhameystiran markii hore kaga iibiyayna uu siiyo per package the unit will be sold marka iyadu halkii package ay Maryam ku soo iibsato 120 and iyadu waxay siin doontaa marka 100 iyo waxay siin doontaa $200 each mid kasta she has already paid waxay imika bixisay oo kale lacag dhan $200 oo ay siisay qolada la yiraahdo computer conventionist oo qolooyin carwooyinka qabta sababta ay u siisay waxa weeye carwo laba cisho soconaysa ayaa micnaha ay position ka kareysatay intaas kadib waxa laynagu yiri assume there are no any other costs waxaad ka soo qaadaa inaanay wax kale oo kharashi aanay jirin waxaad ka soo qaadaa inaanay jirin wax kale oo kharasha laba su'aalood oo kooban baa laynaga weydiiyay if Mary sells baa laynagu markaa ilaa CFP baynu ku jirnaa oo ka jawaabta what if analysis waxaynu ku jirnaa CFP oo ka jawaabta what if analysis if Mary sells 5 packages hadii ay Maryam ku iibiso carwada 4 package muxuu noqonayaa baa lagu weydiiyay total revenue dakhligeedu muxuu noqonayaa total variable cost maxaa uu noqonayaa operating income markaas aynu hore u sheegnay waa what if analysis ki okay if Mary sells hadii hadaba lagaga iibsado 40 package na maxaa uu noqonayaa dakhligeedu maxaa uu noqonayaa total variable cost iyo operating income maxaa ay noqonayaan waxaynu ka shaqeynaynaa markaas eeda ayaynu ka shaqeynaynaa iyo bidaba waan israacinaynaa 5 packages iyo 40 packages 40 packages maxaa uu dakhligu noqonayaa marka ay Maryam ay iibiso 5 ayaynu ku bilaabaynaa revenue-geedu waxa uu noqonayaa ama dakhligu waa 5 xabo oo lagu dhuftay inta ay ku iibin doonto oo 200 marka dakhligeedu waxa uu noqonayaa $1000 su'aashii qaybtii koowaad waynu ka jawaabnay maxaa uu noqonayaa Maryam dakhligeedu hadii ay 5 package ku iibiso carwada su'aasha labaad waxayna weydiinaysay maxaa uu noqonayaa total variable cost-keedu maxaa uu noqonayaa total variable cost-keedu maxaa uu noqonayaa 5 xabo oo midkiiba laga soo siinayo 120 5 xabo oo midkiiba laga soo siinayo 120 5 xabo oo midkiiba laga soo siinayo 120 waa 600 weeyaan waa 600 labada marka aynu kala gooyno marka dakhliga laga gooyo cost-ka qaybta variable-ka oo aynu casharadii hore ku soo dhiganay waxa loo yaqaanaa total contribution margin oo topigeena dambe total contribution
margin waxaa loo yaqaanaa total contribution margin waa 400 dakhliga marka laga gooyo cost-ka qaybta variable-ka ayaa la yiraahdaa total contribution margin waxa aynu ka sii goynaynaa less total fixed cost-kii ayaynu ka goynaynaa lacagta ay bixisay Mary ee 2000 waa fixed cost sababtoo ah lama xidhna dakhligeeda haddii ay 5 ku iibiso carwada iyo haddii ay 40 ku iibiso iyo haddii 100 ku iibisaba she will pay 2000 marka cost-ka caynkaas oo kala ah sidaynu koorsidii hore ku soo qaadanay waxa la yiraahdaa waa cost fixed total fixed cost-ku waxa uu noqonayaa marka 2000 maalintaas haddii 5 package laga iibsado Marian operating loss-ka ay sameynayso waxa uu noqonayaa 1600 halkii laga rabay inay faa'iido sameyso waxa ay sameyn doontaa maalintaasi khasaare ayay sameyn doontaa waxa ay sameyn doontaa khasaare because su'aasha layna weydiiyay baa ahayd if she sells why hadda waxaynu eegaynaa haddii ay 40 iibiso sidee bay wax noqonayaan haddii ay 40 iibiso sidee bay wax noqonayaan waxay noqonayaan 40kii oo lagu dhuftay mid kasta oo ay siin doonto 200 waxay heli doontaa haddii ay labada maalmood ay inta iibiso dakhli dhan 8000 waxay heli doontaa dakhli dhan 8000 total variable cost-keedu waxa uu noqon doonaa total variable cost-keedu waxa uu noqon doonaa 40 xabo oo midkiiba laga soo siiyay 120 oo midkiiba laga soo siiyay 120 intaas oo dhan 4800 total contribution keedu waxa uu noqonayaa oo aynu baran doono contribution-ku waxa uu yahay aynu ku baran doono casharkan ku xiga waxa ay noqonaysaa marka contribution-kii waxa uu noqonayaa 3200 less waxaynu ka sii goynaynaa haddana fixed cost-kii oo ah 2000 waxa ay sameyn doontaa 1200 waxa ay sameyn doontaa 1200 labadii su'aaleed ee layna weydiiyay jawaabtoodii halkan ay ku dhan tahay haddii ay maalintaasi Marian ku xumaato 5 iibiso waxay sameyn doontaa khasaare 1600 haddii ay 40 iibisana waxa ay sameyn doontaa faa'iido 1200 qaybta dambe waxaynu ku analyze karayn doonaa waxa uu yahay contribution qaybtan halkaas ayaynu ku daynaynaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.